بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواada channelkeeni ka faa'iido aqoon casharkeeni casharadeen imtixaanaha tutorialkeeni aan ku baranayna casharada oo guud ahaan iyo wixii bulshada anfacaya ama ardayda faa'iido aan isleenahay way leeyihiin maanta su'aalna soo weydiiyay aan ka jawaabayna su'aashaas oo waxay tahay sidee loo isticmaalaa application la yiraahdo Zoom application Zoom la yiraahdo waa application weyn oo caan ah haddaan doonaysid marka ku qorayso Google tagaysaa ka bacdi waxaad ku qoraysaa zoom.us markaad ku qortid wuxuu ku soo reeyaa application ka systemkiisii ama website-kiisii ayuu ku soo dhigayaa haddii aad ku jirtid website-ka application lagu leeyahay waad download garaysan kartaa haddaad laptop ku jirtid waad ka isticmaali karaysaa laftigiisa laptop-ka uga soo galaysaa ama desktop-ka ku jirtid Zoom marka soo ugu qortid Google wuxuu ku soo dhigayaa page-kiisii horta marka ugu horeysa Zoom waa maxay Zoom waa application ama system sida Skype-ka ama website-da kale caalamiga weeyaan waxaana lagu sameeyaa waxyaabo fara badan bala sameeyaa waxa lagu sameeyaa waxbarashada online-ka ayaa lagu dhigaa practical iyo tutorial waxa kale oo lagu dhigaa meeting-yada shirkadaha ama dawladaha ama meel walba ayaa lagu isticmaalaa training meeting buu leeyahay oo kamarada web kamarada ku xiranaysa video call-ka halkaas aad ka wada daawanaysan dhamaantiin Zoom waxa la yiraahdaa marka application-kaas Zoom la yiraahdaa marka website-kiisa soo galnay Zoom-kan wuxuu leeyahay qaybo badan product fara badan buu leeyahay waxa lagu sameeyaa meeting chatting oo waa kan meeting laga wada hadlo xafladaha in room work plus halkaas laga wada shaqeeyo phone system-kiisa loo isticmaalo cloud-ka la isku wada xiriir foorkaagu in webinar oo ama online wax loogu dhigo dadka training loogu bixiyo online isugu video ah in marketing apps marketplace in lagu sameeyo suuqeyn ama loogu sameeyo in waxbarashada educational iyo explanation traditional classroom-ka in cloud-ka ahaan loo sameysto in adeegyada xisaabaadka ee financial service-ka loo isticmaalo government-igu inuu isticmaasho productivity engagement for all agency department-yada kooxaha kala duwan ee dawladdu isticmaasho haddii meeting sameyso haddii wax sameyso in health care-ka caafimaadku laftigiisu ay isticmaalaan ayaa application-kan waxaana u isticmaali karaysaa waxaad noqon kartaa join meeting baad ku beeri kartaa halkaas kaga beeraysaa meeting-kii waxaad sameysanaysaa video-ga waad iska xiri kartaa muuqaalkaaga adiga lagu arki maayo ama codka markana waa lagu arkayaa caadi labadii waa lagu arkayaa marka waxaad weeyaan waa company bahalkana maaha free buu leeyahay laakiin wax weeyaan iib inta si fiican soo 40 milyan wax ka badan haddii aad doonaysid inaad iibsid unba free 40 milyan markuu joogo ka kale waa time limited ka marka isticmaalaysa system-ka free-giisa weeyaan waxaana loo isticmaalaa meeting-ka video webinars conference aan hore soo sheegnay iyo room call-ka iyo waxaas hal mar la iswada chat gareynayo laga wada hadlayo weeyaan waana number 1 buu imika yahay customer review-ga marka loo eego website-kiisa loo eego aad baa loo isticmaalaa website-ka waxna waa lagu bartaa waxna waa lagu bartaa waa meeting-na lagu galaa application maaha free halkaas aad tagaysaa aad doonaysid inaad iibsatid application-kan planning price-kaas aad tagaysaa saas oo kale garanaysaa markaad planning price-ka ku dhufatid internet oo kaaga baahan yahay bilaa internet kaaga baxna internet-kaagu waa in fiicnaado wuxuu leeyahay qaybahaas uu leeyahay marka company-gaagu sidoo ku xiran yahay ama school-kaagu sidoo ku xiran yahay haddaad school doonaysid inaad u isticmaashid ay ku xirantahay bil walba wax qaar waxay free laakiin waxa ku xiranay waxa soo ka qayb qaadan kara meeting-kaaga 100 qof kaliyaata aan qof kaliyaatna one user kaliyaata uu yeelanaya 40 milyan baa lagu xadidayaa group meeting-kaasu 40 milyan kama badanayo milyan markuu ka dhamaado waqtigu waa la inaga jarayaa muu ka go'ayaa unlimited dadka ka qayb qaatayaashu waa inta soo jeedinaysa laakiin inta meeting-ka fadhida ee video-gan daawanaysa aad soo gudbinaysan waxay soo maxadaysna wax support ya ticket support kaliya uu leeyahay video conference waad sameyn karaysaa web conference waad sameynaysaa web kamarada shirkad ka qayb gashay iyo group collaboration waad ku sameyn kartaa security-giisuna fiican waa inta free-ga ah ee personal qaybta ka basic-gaas pro baad iibsan kartaa marka pro-ga iibsatid waxa weeyaan grid for small teams group yar buu ku fiican yahay waxa ka qayb qaadanaya sida islatii hore 100 qof baa participant dadka soo jeedinaya ee waxa ka qayb qaadanaya su'aalaha la weydiinayo weeyaan meesha fadhiya inta meesha fadhiya
meeting during the limited kiisu waa 24 saacadood halkan markaad iibsatid wuxuu ku xadidayaa $14 bixishid bishiiba wuxuu ku xadidayaa 24 hours buu ku xadidayaa marka isna saas uu ku sameeyaa GB-gana ku farabadinaya 1 GB oo dheeraad uu siinaya MP4 cloud buu ku record gareynaya escape for business ka escape-ga oo isku xiraysa business ahaan markaad isticmaalaysid haddii small medium ka business yahay ama company-gaaga amba dowladda farabadan tahay oo isticmaalaysa qaybtaas aad isticmaalka $19 bishood bixinaysa ayaad bixinaysaa Bermos 19.1 intaad ku dhufanaysaa 12 sanadkii hal mar wada iibsada ka bacdina waxaad sameynaysaa hal mar ayaad wada isticmaalaysaa markaas aad isticmaasho wuxuu sameeyaa username iyo code buu ku siinayaa qaybtaasuna waa kuwa enterprise amba shirkadaha waaweyn amba kombaniyada ama dowladaha ay isticmaalaan oo lacagtaas laga qaadaya bishiiba markaad qaybta ka timaadid waxa loo isticmaali karayaa Zoom for education bajina iyo Zoom for telehealth center ta caafimaadka iyo Zoom for diplomacy horumarinta iyo waxa ka shaqeysa iyo tan haddii ardayda badan ka imika intan uu dilaacay COVID-19 waxa loo isticmaalaa aad baa loo isticmaalaa amba meeting lagu galo oo joint meeting ka la galo amba la sameeyo education han loo galo marka intaas oo introduction kiisi weeyaan marka doonaysid inaad ku soo biirtid waxaad soo galaysaa sign up baad oranaysaa free qaybta free up kaad galaysaa haddii aad sameyn haddii aad waxaad oranaysaa date ka aad doonaysid aad oranaysaa aad dhalatay ayaad goosanaysaa date kaas aad geysanaysaa date markaad geysatid waxaad isticmaalaysaa date-ka dhalatay iyo yeerkii baad qonaysaa marka continue aad ku dhufanaysaa markaad continue ku dhufatid wuxuu ku soo dhigayaa your working address email-kaaga geli company-gaaga email address-kaaga work-ga ma gmail-ka waxa weeyaan ka shirkadda gmail han ama website-kaaga kuwa la samaysto weeyaan international-ka anigu kayga ma isticmaalay maadaama kan tutorial case kaliya tahay waxaan sameeyaa temporary email baan samaysanayaa temporary email-ka oo laga samaysto waxa la yiraahdo tam/mail.org email-ka temporary-ga ay sameynaysaa marka copy baan oranayaa halkaas soo gelinayaa ka bacdina ku copy garanayaa marka ku copy gareeyo sign up baan oranayaa sign up markaan yiraahdo wuxuu sameynayaa username buu sameynayaa wuxuu dirayaa verification buu dirayaa verification-kaas soo cadee oo email-ka ay ku noqo verification-ka tagaysa xaga hoose tagaysa halkaas kugu soo diray oo ku soo diray number Zoom please activate Zoom account buu soo naysa ka bacdina aad kala garanaysaa markaad kala garaysid uu ku soo furayaa Zoom activation-ki halkaas uu noqonaya Zoom activation-ki saas kugu soo dhigay maxaa ku dhufanayaa Zoom active baan ku dhufanayaa marka active ku dhufto wuxuu furayaa qayb kale ayuu furayaa laba mid buu weydiinaya haddii aad iskuulka markaas aad samaysatid weeyaan haddii aad iskuul ka tirsan tahay ama dowlad ka tirsan tahay ama systemkiinu inuu shaqeynayo free baad ku isticmaali karaysaa marka yes baad oranaysaa wuxuu ku weydiinaya markaad continue tirahdid information-kii iskuulkaaga iyo warbixintiisii uu ku siiyey ninka IT-ga ama advisor-ka ama IT supervisor-kiisa ka shaqeeya uu ku siinayo ayaad information-kiisii halkan aad wada gelinaysaa marka information-kii gelinaysid continue ayaad oranaysaa marka imika kan anuma doonayo waxaan oranayaa back qaybta male maadaama aan iskuul ku jirin no baan oranayaa aniga imika mid samaysanaya marka continue oqonaya marka wuxuu ku gelinayaa halkan adigu geli kaagii marka username-kaaga aad u samaysanaysid weeyaan halkan aad tagaysaa waxaad gelin kartaa magacaaga aad gashanaysaa ka bacdina waxaad gashan kartaa magacaaga aad gashanaysaa halkan si ardayda oo ku macallin ku diiwaan geliyo oo ku saxo password-kiisna waxaad oran kartaa password-ka soo adag baad samaysanaysaa password-ka kula talinaya amba ku adiga ayaad samaysan kartaa marka kaan samaysanaysaa halkaas kugu sheegaya shuruudahaas waa inaad buuxisaa kii uu ka dhigo casaankaas oo dhan maad buuxin shuruudiisii password-ka marka password-ka kaasaad buuxinaysaa markuu saa wada green ama cagaarka kugu noqdo uu ku saxsan yahay marka intii in leeg baad ku soo celinaysaa saa uma soo copy garaysanaysid confirmation kuma yeelayo uu diidaya marka saa soo copy garaysid laakiin marka waa inaad wixii oo dhan aad adigu soo wada samaysaa intii oo dhan samaysaa hadduu isku match yahay oo saxsan yahay wuxuu qoranayaa sax hadii kale inuu ku soo celinaya ka bacdi wuxuu ku siinayaa website-ka aad doonaysid inaad gelisid domain-kaagii ayaad gelinaysaa halkan website-ka name-kiisii ayaad halkan wada gashanaysaa ama company shirkadaada amba online system-kaaga amba waxaagaad ku dhigaysid ayaad gelinaysaa laakiin imika waxaan gelinaynaa oo kaliya email-kaygan ayaan gelinaynaa email-kan ma ku celinayaa
tusaale mail laakiin aad waxaad gelinaysaa iskuulkaaga ama jaamacadaada wixii ay ku dirtay ayaad gelinaysaa kabacdina waxaad gelinaysaa email-adeedii wixii ayaad gelinaysaa si sax ah aad isku diiwaangelisay invitation marka haddii doonaysid skip baad oran kartaa waad ka boodi kartaa qaybta oo haddaan ku dhufto skip lagu ka boodaya haddaan ku dhufto invitation raadana uu gelinaya marka wuxuu kuu sameynayaa personal meeting roomkaaga kuu sameynayaa haddaad doonaysid inaad ka qayb qaadashid personal meetingkii kaasaad ku dhufanaysaa haddii kalena linkigaasaad ku dhufanaysaa linkiga laisku diro ee ardayda loo dirayo your personal meeting uralkaad dadka kula gelaysid waa kaasaad u dirta passwordkiisina waa ka hoose ka kalena waa saa kabacdina start meeting haddaan idhaahdo saasaan soo gelaya qayb cusub buu kuu furayaa meetingkii ayaad gelaysaa halkaasaad kala soconaysaa haddii aad galaaskii ku jirtay galaaskii halkaasaad kala soconaysaa imaka saa ugu dhufatin meeshinkii wuxuu iisoo downloadgareeyey few seconds kan buu ii downloadgareeyey applicationkiisii ayuu ii downloadgareeyey applicationkiisi markaad gelisay computerka ayaad ku shubaysaa computerkaad ku shubaysaa ama applicationka mobilekaaga ayaad ku shubanaysaa isagoo application inuu jiraa isagoo application mobilekana waad ku shubanaysaa markaas saasaad u isticmaalaysaa join meeting markaad doonaysid inaad ka qayb gashid arday halkaasaad ku biiraysaa join meetingkaas waxa meeting hore usii jiray markaad doonaysid inaad ka qayb gashid halkaasaad ku qoraysaa jaamacadaada ama ID-gaaga ama qofkaad doonaysid meetingka inaad gashid ama jaamacadaada passwordkaaga meeting ID-gaaga ama personal link name-kaaga ayaad halkan gelinaysaa markaas waxaad oranaysaa join markaasaad ku biiraysaa markaas student baad samaysanaysaa time ama timetable ayaad qolaan ku samaysanaysaa waqtiga aad galaysid xiisadahaaga oo dhan ayaad halkan ku qoranaysaa isna wuxuu ku sii faa'iideynaya halkan meeting ku qoranaysaa informationkiisa oo dhan ayaad halkan buuxsanaysaa sida waqtiga aad ula socotid u galayo videogana xagana waad iska xiri kartaa waa bila video waad ku daawan kartaa bila muuqaalka codkiisana hadduu kaa xirmaado weeyaankana aad videoga marna waad iska xiraysaa marna waad iska furaysaa weeyaan haddii wax cilada kugu timaado xaganaad imanaysaa marka uu kaa dhamaaday install gareeyo leeyahay marka install gareeyo application hadduu wax cilada kugu timaado solutionkiisa xagganaad weydiinaysaa hal bisadar baa jirta supportigaasaad garaacaysaa haddaad iibsatay waxaad macal lambarkaasaad garaaci kartaa ood iibsatay oo shaqaysatay supportiga nimanka waad kala hadli karaysaa online-ka halkaas kusoo dhigay sawirkaagii waad ka bedeli karaysaa profilekaaga waxaad ku samaysaa profilekaasaad ku samaysaa waad edit garayn karaysaa waad hagaajisan karaysaa si macalinkii ama course-kii uu kula socdo oo aad kala socotid halkaasaad kala wada soconaysaa markuu systemkaaga kugu furmo sidan oo kale waxaad samaynaysaa sign in baad oranaysaa ama joining meetings wuxuu kusoo dhigayaa informationkaagii warbixintaadii ayaad gelaysaa galaaskii adigoo halkaa jooga ayaad kala soconaysaa marka imika informationkeeni waa kaa soo buuxiyey wuxuu ku siinayaa password iyo usernamekaas ku siinayaa password iyo usernamekaas ku siinayaa kuwan aad gelinaysaa hostnamekaaga iyo magacaagan ku gelayna waxaas uralkeena waa kan qaadanayna marka intaa participant ID-ga lagu weydiinayo oo ku weydiinaya macallimiintu ama laga rabaa waa ka participant ID-ga numberkaas weeyaan ayaad u gudbinaysaa ardaydaada aad adigu doonaysid inay kula qofka ama doonaysid in meetingka kula galo ayaad u galaysaa marka qofka halka ka gashid ayaad gelinaysaa xaggan ID-yadii iyo wixii ayaad hagaajisanaysaa qaybahaaga oo dhan buu leeyahay join computer audio soo leeyahay codkayga ayaad halka ka maqlaysaa haddaan kusoo biirno xaggan audio-ga xaggana screen-ka haddaan inaga tusayo screen-ka xaggana invitation haddaan dad kale ku qaadayo markaas saasaa loo isticmaalaa zoom-kana haddii aad waxba casharo kale usii baahantay dheeraadana commentigaad kusoo qoraysaa kasoo gabagabeynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu